سماويت فلايت كنمبر كيسي سيدات بقول 85 او اي صارنايين بقول 5 waxaan soo gaartay dhimashada in ay sii kordhayso hadeersan dacada waxay galgashay shirkadaha dulmadyada oo dhan Hindiya waxaa ka qarxay duufaan siyaasadeed wararkan soo gaaraya waxay sheegayaan diyaaradda inay saaran yihiin 150 oo Hindiya wadana wararabna sidaad wada arkaysaan diyaaradda musiibada ee ku dhacday nambarkeedana uu ahaa 815 xitaa shirkadii lahayd ee lagu magacaabay Aditya Raj dadka ka shaqeynaya mas'uuliyadeeda inay dusha saartaan waa ay diideen waqti xaadirkan arintan si aan anaga u sii iftiimin waxaana la joogo shirkadda TGC ee baaritaanka ninka u fadhiya lagu magacaabo Mr. Rabaso mudan dhacdadan ilaa ay hadda mas'uuliyadeeda qof dusha saaranaysa ma lahan anaga iyo daawadayaashana sideen ku ogaan karnaa marka qofka ka dambeeya arintan si taas loo ogaado waxaan u baahanahay sanduuqa madow in anaga helno sanduuqa madow wuxuu yahay anaga daawadayaasha ma noo sheegi kartaan mudane hadda baan sidoo kale waxa loo yaqaanaa cudubaha sanduuqa madow haddii sharaxaad kooban aan kaa siiyo kalarkiisa waxa uu yahay gaduud sidoo kale codka diyaaradda oo dhan waa uu duubaa codadka bayloodka xitaa si fiican ayuu u duubaa ka hor intaysan qarxin diyaaradda codkaas anaga markii aan dhegaysano waxaan ka ogaa karnaa diyaaraddaas qaraxeeda cidda ka dambeysay ama cilad farsamo darteeda ee u qarxday sidaas ayaan kula ogaa karnaa laakiin mudan boxkan asaga ma halaabayo miyaane may dabcan ma halaabayo heerkul 1 digrii xitaa ma ku halaabayo isaga wuu adag yahay ma la yaabo inuu halaabo daawadayaal hadda waxa aan sugaynaa boxkan inta gacanta lagu soo dhigayo oo kaliya si aan u ogaano flightka nambarkiisa ahaa 815 musiibada dhanka ay kaga timid annaga warbixin inaan gudbino Soomaaliyeed marka hore report kala keeno ريبوتك هلا كان تاغنتا انا دد وليغود وريس صحافada siin jire maxaa nooga dhigaysaa waa markii ugu horeysay ee shirkadeena cid su'aal ay weydiisay anaga su'aalaha ina ka jawaabno anaga ay shaqadeena tahay ee adiga shaqadaada ma ahan warka in la bumbuniyo waa laga fiican yahay go'aan ganacsiyan la sugaay dalabta maalgeliyaashan dubay balan kula leeyahay buga warka hoos ha loo dhigo laakiin si mudana kana anaga ilaa hadda waxa deena maaragtay oo aan dadka shirkadda joogo mar rabaan ayaga inay wax qabtaan ama dusha loo saaro anaga oo kaliya soo saarayaal ayaa wax walba la weydiinaya haruntiis waaye diyaaradda hadii ay soo dagays waxa la qalabkeeda haleysnay hadii diyaaradda xoogaa luxmatan waxa la qaabka loo sameeyaa qaldan hadii raashinka ta xoogaa dhadhan yeelana waxa la heer kurka diyaaradda waaye kaba soo qaada hadda aniga warbixinayaan qorno oo waxaan dhahnay diyaaraddeena wax cilad habeeraatay ma lahan laakiin si waxaad ogaataa sanduuqa madow markii la helo adiga waxaase ka walwalin inaa walwashidna maba loo baahnaba ila ma aan midaas inuu aqbalaya isaga yaabayna ranfiir ma ka hadloosaa asaga wax oo go'aan ka gaari kara haba yaraatee male guddiga meeshaan fali iyagaana go'aan gaaraya teeda kale adiga horta guddiga inaad ka mid ahayn ma ogido annaga le wax walba go'aan ka gaari karno adiga wax la isku xiriirinoosaa taas la soco
dhegaysan adwaaniyo ninkaas waxa waaye maamulka guud waay ninkaana usugu mataloya haddamaha taaga waa matalooya ma ay dhahdeen horta wax badan aan ku sheegaa bagga koobaad waxaa ku qoran shirkadda in ay quusooso si fiican u fiiri bagga saddexaadna asoo niikilooya ku qoran mar labaad horta aad kuu soo celiyo marnaba ma ogolaanaysa mana hore ogolaanne horta hore usuga aawe xaqow jara ii sheega يا أصحابي قاعدين فضولية ما حد يقول أحس فضولية وقتي ما هنا نجا اسبوبسية أصحابي ما حجروا ما حنقض المشن cadaadis kan wada hoos buu dhacayaa ما حقيقي كرتا مدسنا 36 kun oo feet waay أباي أبا hawadana waa sii daciifaysaa أوسس ما إلى ذا ha maxaan samaynaa marka أوكي adigaad i raadinaysaa ilaa hadda anigana halkan ayaan kugu sugayaa waay kan hadalkan inaan dhahaa ilaa yaraanteeda waan sugaya waa deelag wanaagsan runaanta oo ku faraxsanahay waana maasan tahay maxaan dhaa oo kan waan qaadan kara halkaana waa ka tegi kare laakiin waxaan is tiri shaqaalahada marka hore waa inaad u mahad celisaa haddii kale akhlaaqdaray noqonaysaa maysin mar labaad shaqo wanaagsan adiga meesha ina imaadi ma bahem halkan waa shirkadda aabbahay wakhtigan doonan imaanayaa هلو سويدي هلو معاني ايه وران ها معناتي أسوريا ما حد تري هلو هلو ما عسيه هذيقني كم مغلس نجا أهم صديقة يا أخي هاشو مثلك هذا البلد محاسن اسكي قوسا ما عسينو إيكادي هل دقيقة حول يقص علي عضد كان مغلوي محي هنا معقول معها محاوي xilli aan loo baahnayn tiishkan horta muxuu u go'aa mar walbo maxaa sameeyaa had sideen ku xaliyaa arrintan waxaan waabanaca kulligooda please war beebidaa sheegaysa maxay tahayna hal xab ma kugu filnaaweysa adiga horta iyo kalow inaan hadlo fursadiisii wax walbana ku sharaxaya marka hore halkaan ka timid midigta anigana bidixan ka soo socday kabadha dheer ee wadatay kadibna waa iga hor timid waa igu soo dhacday kadib saxaafadda meesha timid waa la sawray beelaa tahay qaladkaa gashay xitaa saxaafadaad ku eedaynaysaa waxaase aniga inaa igala dhacsiis rabtaa soo maaha may sidaa maaha laakiinse mid moog tahayne adiga maanta in dhimanayaa leedahay laakiin ani ma ku dhahooya arrintaas
saxaafadda lay ku dhahoosaa ku dhaha waxaasoo dhan laakiin waxaa la yaabanahay maxaaba codkaanaa maqlooyo mitin kulanan ku jira macnaha sidan ka wadaa beelaa tahay guddiga kullin way kula ordooyin maaho waxaa rabta maa iska sheegaysaadi se iila ordayaan jirkooda maba dhisna nimankee fiiri iga ballanqaad galabtiina imaanayso arrintaa iga sasabaysid sorry baby galabta shir kalan leeya shirkaaga ha gubtaan ku dhah fiiri aniga wakhti fara badan ayaan haayaa marka xigtaad imaanaysidna lama filaan qurux badan ayaan kuu diyaarinayaa waa huwaa marka kale waxba ma iloobaysid maxaa tiri furiin codadanba kuu reeba ma arkina susug maxaa dhahday goormee isigoo tigiba waa soo noqaa haye qaali aad baan ugu xamaasay degdegan ku soo baxay midda kale heesii talaadada ku baraati garanayaad waan ku wada diyaariyey kafaygana meeshiisa si fiican cagcad asri beelaa tahaan ku dhahay laakiinse wakhtigii ma haysid wakhti walba inaan kaa adkaado waa laga fiican yahay yaaqae meerijaan waa la yaqaanaa laakiinse aniga cid i taqaana ma laha adigoo keliyaan kaa adka oo maanta dhan ku burbursanaya maxaa tir macaani maxaasaan ii leedahay midda kale shirkan kuleelka anoo ku jiro ma nuucaddan iila hadlaysaa wakhti ima haysida ii dhehe miya war ma ogtahay qofkaa jeceshaa wakhtiga waa loo raadiyaaye wakhtiga miska imaado maanta dhan waxaa isleeyahay ninkaa muxuu saan uga hadlaya laakiin haddaa si fiican kuu ogaada bow anaa naagii warwareejinaysaa miya kadibna waa iskee difaacaysaa imaanaa ku dhaha guriga anaa ku aqaanee naagaa ii wareejinay meelaha soo dhigay bay qalab saxaafadeed leena waxaan adiga shaka soo yeeshay ahayd halo halo hal daqiiqa fursadiisii halow xubi macan may maqlaysaa halow mudane naagtaa waa amar badanta anna waa iska dhigi koleya hadda waa baxaa waa ku soo naqaha amarkeeda inuu qaato waa ku qasban yahay keligiisa go'aan ma gaari karo manadra anaga wuuna dhegaysan jir marka hore hadalkeena qiimo ma laha miya ii sheega bal isaan iska sugaynaa qiimahan ka hayno ranfiir mar walba annaga dhib loo noo abuuraa laakiin idbaani nasiibkaada aad buu u wanaagsan yahay maxaa yeele maanta dhib ma wado ee dhibkagaan rabaa inaan xalliyo diyaar muu tahay iya babaay waaba i qiimaysaane yaa idin heli kara ha iga xishootiina iska fadhiista nasta dabcan sanduuqan waa xasuusatay inaan la malaynaa xagaad ka soo heshay adiga adeerkana hore shaaruuqan wuxuu u yidhi wax si niyada haddaad u jeclaato dunida waxay kuga caawinaysaa saad ku heli lahayd shaygaas haye alxaasil dunidii ayaana caawisay sanduuqina gacantaan ku soo dhignay run ahaantii caddaynta intaysa dibadda u bixin ka hor gurigaa ma dhigannaba shaqaalaha diidiya ka shaqeeya aad bay u wanaagsan yihiin mushaarkan loogu daro ayay mudan yihiin amaba waxaan isleeyahay qof ayaa bakshiis dhiibay soo sax maa mase waa qaldanahay adiga ranfiir arrintan waa arrin adag in la baaray u baahan tahay waa la baarayaa balse qorshaha halkaan isugu nimid marka hore waa inaan ka wada hadalnaa cadaadiska diyaaradda hoos u dhacay mudane ma hubtaa midaas mana xaqiijin kartaa dhulka aadaa ugu dhowna 36 kun oo fida meeshaan ku qoran qaabka ku dhacaysa marka mudane iska feeli beeladadooda idin waxay isku sheegeen diyaaradda dhulka inay u jirta 36 kun oo fiid haddana waxay ku dhacday buur 8 kun oo fiida say ku dhacda marka master farma beeladada haddaysan hurdaynin waxaan maxay ku dhici karaan cabirkaa qaldan waa saxan tahay baaritaan dheer markii aan sameeyey sannadii la soo dhaafay waxaan ogaaday meeshii aan agabka ka qaadan jirnay aan ka qaadano kambelikan aan ka qaadan jirnay taasna waxaan ku heli jirnay raqiis ganacsi wanaagsan ayaan samaynay laakiin ma is weydiin ganacsigaasaan samaynay dad fara badan
inay ku baaba'ayeen qaladka innagaas kale dad fara badan ayaa darteen u dhintay sidaa darteed kabacdi duulimaadida noo diyaarsan oo idil waan joojinaynaa qolada hawadana ha loo sheega magdhow haddii doonayaan waan siinaynaa sidee ku joojihayna unuka yaqay wax macquul leh maaha haddee raaw baabaan anagii diyaaraddeena weyneed xaaladda ku sugantaa ma ogtiin adinka hal rikaab haddii la baajiyo qiimaha dhan hoos ayuu u dhacayaa 300 shirkan hoos u dhacay annaga dhan waa baaba'eena taas macquul maahan makaa yeelahay dadka dhinta magdhow leh ruway taas aan rabay in la sameeyo igaarkeyga aniga tamiyo kow sano jiri marka ugu horeysa iskoolkiisa dalxiis u wado waay aniga cadaaladaan rabaa saan ku noolaa ma karo igaarkay inaagta soo aroosi todoba inay aadaanay u baxeen lamadood maxaa todoba ugiyaab lagu diimiyey ana keligee ii tageen hadda maxaan ka noolaahaa marka waayihe nadwaani wiilkaaga diyaaraddan hadduu saarnaalaha magdhow imisaad qaadan lahayd adare dhegaysa qaran islaantan hoynaysa ma ka dhaadhicin kartaa shirkadda sheerka aad ku leedahay inay ka qiimo badan tahay gabadha nolosheeda iyo wiilka ay dhashay master samiir sanadkiiayna soo dhaafnay aabbaha ayaa geerida sooma imise bilyan ayaa kuu beddeli kartaa shirkadda duulimaadyada aditya raaj hal qof ayaa mabaadidiisa ku dhisay mabaadidaasna haddaysan soconayn shirkaddan shaqadeedana ma sii soconayso maalgeliyaasha dubay anigaa la hadlaaya qofkii raacaya afkiisa ma kala furi karo anigoo keliya ayaa hadlaya warbaahintana anaa war u diyaarinaya adeer mahallaa buur tikid nadiifa oo abniha ma iiga diyaar garin kartaa adoo raalliya waxay ii qabaan dadkan ma sheegi karo laakiin abnigooda muhiim uu ii yahay shirkadda faalkan adeer faylashooda ma ii soo diri kartaa heshiiskayga la dhexeynka wadaa aha warbixinta ugu dambaysa idila wadaagayaa qofka heshiiskan soo dhammeeyey ballan waxaan ku qaaday ma dhammaystiraayo dubayaa noo balana hadday sidaas tahay safarkayga ii fuday dhoscom aniga tigid mid kaga dalbaana ii sheega akshinkan soo sameynaa iga khasaari rabay ma soconaa ukaad haldaqiiqo waa maxay waxaan sida xujiraan kaale shaqaalahan istaafka aniga lacagta blash box siinaana ii sheeg mudan waa isku daynana iga aamusuriya iska raalhaw hay mudane horey muu dhacday nin shirkaddan maamulayo inuu burcad la dagaala asiga ilaa gabar ma soconayan waxaan ilaa kursiga aad kaga fariisanayso yab waa runtii wiilkayga maxaad ii fahmi lahaa awow adigaan ii fahmayn yaranteedu waa xasuusataan u malaynaa markaan baaskiilka qaata abbay muxuu samayn jiray baaskiilka ayuu silsiladkaaga xiri jira asaga laakiinse baaskiilka kale ee shaqaale ay lahaayeen ayaad adiga xadi jirtay kadibna waad ku soo wareegi jirtay soo saas maaha dabcan haa wiilkaygii isku day inaad fahmi iga dhaaf ruum royoo kale ha ila hadlin waaw waxaana laga dhahaa mishan waa lagu dagaalami karaa si qalbiyana ayuu u naqshaday aabbahay diyaaraddan aabbaha wuxuu ahaa beelad wanaagsan runtii sidoo kalena wuxuu ahaa qof wanaagsan isaga fiiri hadda nin shaqaalaha ayuu walaalkiis ka dhigtay maxaa ku hadlaysaa awow walaalkii mar walba wuxuu dhihi jiray shirkaddan adiida daraaj waxay noqonaysaa shirkadaha dunida midda ugu wanaagsan ayay noqonaysaa caadi maaha ninkaas waan xasuustaa runtii hadduu maanta joogi lahaa nimankaan sida mukalaan uma qayn lahayn sidaad u hadlaysaa ilmaha markii la maamulayo maamulka uma baahna ee kaabagalaaska ku filan ballan waxaan kaa qaadayaa sharafta aabbahay inaan kor u qaado waan ogaa wiilkaygii aniga dunida hal walaal oo keliyan ku qabay balse maanta ma joogo oo walaalkay uu dhintay
balse intuusan dhiman ka hor anigoo wiilaan ahaa ayuu hal wiil dunida korkeeda iiga tegey awoowe ma waxaad doonaysaa sidaan u duulaya inaad ogaato intaan iguma filna ee hawadan ballaari waxaan suuragal ahayn waa yaa dhihi jir ma xasuustaa aabbahay waana ka hele wiilkaygii adiga hadda shaqadaas soo dhammayso anigana mandirka ayaan duco kuu sii awalanba kaa sugan xafladaro qamri iyo waxaas laga isticmaalaa inay ii dhigto maxaa dhacay ma mar kale ayaa dagaal dhacay sawirkayga journaalka haddii lagu soo daawacay qalad miyaan leeyahay wax qalada melaysa aan arka kulley ha eedhin wiil yaroo qurux badan haddii journaalka lagu soo sawirin oday waayeela maa lagu soo sawiri lahaa waa maya maya maysaasaa dhihin iguma kalsoona qoftaas sasabanoo maxaa dhacay adiga la iisoo sasab adaa isfahmaysiine runta ma kuu sheegaa keligayaa baxay waan la socdaa midaas ilaan mukulaalana qaylinaya qof ilaalay ayay rabaan or adiga eedada kale warkuu fahmee ku jeclayaa midda kale awoowe laba gabdhoodoo qurux badan ayaa halkaas igu sugaya ma garatay kutuleetiga laftan muxuu ka dhex samaynaa orad wiilkaygii ii baashaa laakiinse iska yareeyaa habasanina kun haddii kala dhow dhib weynaa la kulmaysaa ma fahante mayla kaftamaysaa ma xuma ma xuma idhoya alxasil waa kuu daci wiilkaygii mudana qabso soco wiilkaygii soco yees gabdha waa idin salaamay waa kaa qaadnay keena kaa qaaday meel fiican hala dhigayaa ma soo dahay dabcan wax yar lee soo daahday ma badneen waqtiga loo baahnaayaa nimid هو مدن عبيتان كايغ اسفو دانيا لكن تسمع سلام على قوضة اسكو دقيقة ما ديد انت مدن بالراجنا خيانتد ما اسكو ديو ساعة قبله دن محي ايقا شكسيين مانتا عيارتان هاد السنة بدن يسوعتا مثل هذا هذه قبل قديم يا نغط معلم ده ان ما اكتهيني دياردان لأنتي اذا كفايحتكم سميسن كرتيد يدقيسو تعرف لماذا ذا كفايدي سيا اباها غليك يسيدوها وفي عيها أبهي سدح مرنو يويديس محادعي مايا لعقت هذا قولينا كل ستين كلام كويديني وحوين ما تص هذيك مرنو بس مبدليسد هذا وبحا كابتن كاسو فيرنا يا محمد باي هل ما دقا دقيسو اوليف كي كانوا دوننا يا dadka biyo cabay laayihiin annagana ilaa hadda diyaaradda barkeed noogu samaysantaa maxay dhahdane mamay waxba waad qurux badantaa waa mahadsan tahay igaraal noq mudane okay dokumentayaashaana dalbata ma ahano beautiful thank you adigaa mudan garab wanaagsan mudane kursigaaga waa inaad ku laabataa weliba aa fadhiisataa hadda waxaan u baanaa diyaaradda aniga inaan duulino waa socdaa kursiga dhinaciisaan u socdaa captain kursigayga waan ku fadhiyaa amar kaloo siinaysa miyaa jira bal ii sheeg maanta ima aadan soo salaamin xoogaa mushaarka ma lagaa soo daahiyey waa midaan la yaabanaha maya mudana diyaaradda ka soo daaday saas daraaddeedaa u dadegsannahay xawaaraha diyaaradda yaray maxaa yeele diyaaradaha ayaamahan qaraxay keeneen maya mudane midaas ma dhici doonto haddeeba diyaaradda duusha anigaba ku imaanaya haddaad ii timaado yaa wadaya diyaaradda waan kula kaftamay wax kale miyaad ii haysaa soonkaaga xidho adigoo maadsan runu waxaan aqsiyaa kan mister malhodra ku soo dhawaaw diyaaradda phoenix fadlan adigoo raaliya dhagahaagana amaahi waxaan kaa codsanaynaa suunka inaad xidhato
sidoo kale buugga badbaadada hortaada ayuu ku jiraa tan kale waxaan kaaga baahanahay haddii aad oksijiin iyo waxaas u baahatane korkaaga ayuu suran yahay igaraale noqo mudane cabitaankaaga ma qaadi karaa diyaaraddu way ka cirib tahay shaqada cabitaanka marnaba laguma cabay sweetheart mar kale galab wanaagsan mudane mulhowtar aniga saniyal ayaan ahay waxaan kugu wargelinayaa haddaynaan hawada u sara kici doonno wax walbo elektroniga haysatay telefoon kombyutar waa inaad damisaa ha ka walwalin hawada dubay waxaa ku beegannahay 9 saac iyo bar saacadu markay taagan tahay كابتن سانيال شرما ما يمقشان ميا هلو ما هي جواب يسيلاين لكن كابتن هلو صباح الموانك سنة هي جواب فيلم ما يمقشني هلو وحل قلت ترجمة كابتن أستان فيلمس कुछ याद की
ma samaysan kartid تفضل. halkan fiiriye ayaa soo laabtay waanaga shaqadan labadiin inaa qabateen ilaan diyaaradda mar hadday duusho qof ma soo kori karto hadduusan Tom Cruise ahayn hawshan saa u qaba laheedeen lacag fara badan ayaad ku soo qaadateen lacagta markaa qaadataan kadib sharma adiga doonkuu qaasa gadanaysaa sanya adigana barasiila gabdho qurux badan qamri kula dhex cabaysa waa intaas lacagta qiimahaas oo keliya ayay leedahay xaggiina si kale haddaan u fiiriy arrintan waxaa ka dambeeyey faraadkii 815 sirtiis inaan banaanka keena dadkii diiday waa sidaan qiyaasayo dabcan waxaas wax weyn maaha qof kasta qiyaasi kara si haddii loo fiiriyo
laakiin maxaa samayseen gabdhihii masaakiinta ahaa ayaa disheen kadibna ay sii dayseen hataa shaqo idiin harsanta oo bilaabaysaan ii sheega marka maxaad iga dalbanaysaan oon idiin qabtaa codsada maxaa idiin qabtaa hadla gacan fudud maad hadashaan waqti ma hayo halow hadla yaaqi waan ogahay inaad imaqlaysaan midda kale noloshiina idiin fududeeyo shirkad waxaan leeyahay $500 bilyan waadna dareemi kartaan lacagtaas dariskeeda iyo inta ibro ku jirto wax codsada maxaa idin siiyaa nolosheeda imise idinkugu fadhisaa ma hadashaan hadlano hadla yaqay ma hadashaan maxaa rabtaan ii sheeg waxaad codsanaysaan lacag maad rabtaan mase shirkadda mase waa idin shubina sorry war maa nala hadashaan halow ها laga yaabo cod inuu ku furmayo waa tareegreyna ii kaadi felix iga fur felix codkaaga ma shaqeyn simsim isfurno waqti ma hena yaqif simsim please simsim isfur yaqi maxasbe bes hagaag neef qaado ayardak muxuma waa gartay markaan dubay tagno burj khaliifaan tagaynaa waa wada sharaabaynaa arrintaana si deganaanaan ku dhammaynaynaa say adalan tahay soo ma wanaagsana haye waa gartay burj khaliif warnaa idinkadaa marka waayahay ha ilaa hadlano waxaa leeydhaa yaaqi albaabka fura albaabka maxaa laa masutinaga fura yaqa bilaalow ميدي هلو يا اخي خف تلفكي قبل يا ملامي قوي يا اخي تليفونك قف سكعي جواب يا ملامي يا اخي كوك من التلقى حتى تلفك ما قبل بس وين قلت اوكي هقاك وانا ما تمرك اوكي وحما السمينيو واوري بيلوتك ديارده sida inuu gadgadin karmaaniga mooday hadii aad ilaahay qof ilaahay inaad raadso soo qasama
abtin good afternoon mudanayaal iyo marwooyin waa maalin qurux badan neefta jiida dareeshada bannaankana soo istaaga dhammaantiin si aad u aragtaan cirka quruxdiisa iyo jooga siduu yahay sunna xirataan lama baahana maxaa yeelay diyaaradda halkan ay dhex taagan tahay waa anaga nasiib xumadeenna bashaara xaflad dhigta iska sharaaba hala boodboodo walwalka hala iska dhaafo ilaa xaaladii aba sidaa noqotay waxaana galada siinaa aaliya iyo sharma zandani hanza nizama arajnay tumaare saniya xanadaya haysta qaranka maqaaday mana ku ciyaaray waa nooc kale وريا او ثانية ما اي كلا تورس ديارته ما قد قديني ازاي يا اخي الباب كي يقفل بليز سمي جلس كان واحد جوجي وريا وين تجي مامي فهمت هذه الشيء قف انت ام الشيء ان يديني الابتان انه الشيء هلا يقفل الباب كان واحد جوجي بليز فين وريا ثانية مصبح الصباح وهي انا السكلة
waxay la tahay fariintan midii ugu dambaysay inay tahay markaad idhahaysi maantaad dhimanaysaa ma aqan waxa kaa keenay way fiicnaan lahayd fariintaada hal jawaab inaan u helo way fiicnaan lahayd dacwooyinka badan ee aad qabto mid ka mid ah inaan kaaga jawaabi karo fariintan inay ku soo gaarayso iyo in kale aniga runtii war uma hayo laakiin haddii fariintan ku soo gaarto waa ku baryaa qof kale hayga dhex raadin maxaa yeelay qof sida anigoo kale u qurux badan oo aqli badan ma helaysid ha isku daalin aryaa ranviir manotrow ranviir manotrihii iska lahay shirkadda diyaaradaha ee aditya raaj kalsoonidii iyo mabaadi'dii oo aabbihiisa aditya raaj uu ka dhintay oo u yahay tusaale mahan ku dhex muuqda laakiin waxaan aad ugu xumahay inaan maanta idiin sheego yeerkaas inay maanta diyaarad la qaraxday uu dhintay adduunka xaadirku maaha muggan baaritaan sameyn aan waxaan ku ogaanay inuu sameeyey heshiisyo musuqmaasuq ah taasoo shirkaddeena hoosu dhac ku riday waxayna sababtay duulimaadkii 815 inay musiibo ku dhacdo tilaabadaas uu qaada horta hore shirkaddoo keliya khasaare kuma dhic dad badan naftoodu u baasbaxay shirkadda aditya raaj anigoo matalaya shaqaalaheedoo idil waxaan raaligelin buuxda siina dadkay musiibada dhacda saamaysay weliba waxaa isku daya dadkaas magdhow in aan gacanta ka saaro dadka noolnoolna cafisaan weyddiisaha barowadayda ka war khudbadan waxaan ku talagalay shir saxaafadeed dubay aan ku qaban raba ka war ma ku qanciyey aniga ma sheegi karo inaad daawanaysa in kale ma sheegi kara balse waa fiirsanay laakiin ana og waa fiirsahee sababto ah waa madax adag tahay aabbahaa oo kalaa tahay aabbahaa saalkuma dhimanaysa waa ku ogahay adiga waxaada tiri shirkaddan inaad kartidiisa iyo raganimadiisa usuga keligiisa ku sameeyey keligiisa aday tiri keligiisa oo makaxaan
nacalla keligiisa ku yaal aniga mabaadiida kaadi sabta hore waxay ahaayeen ha ama filinka diiwaanad soo fiirsata xale shirkay qabanayeen sheeka filmaad ka dhigta ka war adooga runta maan kuu sheega madaxtinimadowha unuka waa shirkaddan waxa shiday unukaa keena kicinna adooga keligiis waxuu qaban karay shirkadda gudaheeda qolka intuu isku soo xiro iska qilqaylin jiray sida nin waalan oo kale asaad leedahay isagaa kiciyey ka war maantana adigaba xadka lagugu talagala ka tagtay kangili kangabee kangiliyaad keentay arkanday adiga waxaad la yaaban tahay barnaamijkaasaan ku diyaariyey soo maha anaa kuu sheegaya adigaa wareerka badiyey bugaad wareerka badisay aniga hal baylood oo qataro qamarjiyaan raadiyey sawgu bedela cabitaankaad adduunku ugu jecesha marka ugu horeysanayo uu ka bilaabo mataqaanaa bayloodkii qoortuu ka siibay isgaarsiintii oo dhan uu inga xiray أو ديارة ما هي كسر اعترنا وكلش أصوب دقلنا هديك ور ديارة أو توبالت كو أفرك ورنا شغاليه ديارة صارنا وغيرجي سعي أديك قرب خوسينا كور soo aruushay ka war asoo adiga kaliga ma kaaga soo tagay diyaaradada inay afduuban tahay ma aho waa dhume adiga ma ingiriisaad noo maraysay onu kalle waay adiga xogoo weyn fikir wax magag badan fikir waxaan rabay diyaaradda adoogaa inaan ku saaro 30 kun oo fiid mayl u jarta dhulka inaan korkeeda kugu duba ka war عندك ماما وحابة صوع عم بعد ديارنا إني سكر لومان كور أول بكرسي أنا لو ترجع أنا جواها أنا أخوف دي سنة هذا كور هل لو جوا سارة قبل أدوغا سارة هل لو نوع سارة أخبارتها ولا مهران أنك دي كور سوجك وما هنود مع سنتا مهسني أراميرو حاجة وكالوا دعدا نقول قاد وصلنا مكي
just mudane fariintii ugu dambaysay lixda ayay soo dhacday markuu bamba ay ka baxayay sidoo kale mudane wax walba normal ayay ahaayeen dadka diyaaradda raacayay anagu waan baarnay ilaa haddana baaritaan ayaan ku haynaa tan kale mudane ilaa hadda fariin emergency ah nooma imaanin anagana ilaa hadda caddeynaan raadinoona iyo baaritaan badan oon ku haynaa diyaaraddana maku muuqataa adiga maku muuqataa maya mudane waayahay sheekooyinka harqiista orod ula tag dadka kaa sarreeyo mudane anaga baaritaanka hadda aa wadno tiimka ugu khatarsan ayaan u darnay warheedha diyaaradda ugu muhiimsanee dunida ayaa hawadiina lagu waayey shaqaalahaagana sidaan iska fidha marka sareeda shaqaalaha ku kalsoonaay waxaaba kocma dadkan adiga rajadina ka leedaha weli gabaray maxaa kuu muuqdo ood aragtay ilaa hadda salaamu calaykum mudane diyaaraddaadii oo bambahay ka timid fariimihii kuu reebta ugu dambaysay mudan waa tan adoo raalli dhegayso diyaaradda Phoenix 261 Alpha Control-kan u gudbinaynaa hawada hindi baan ka bixi rabnaa 1200 dhanka waqooyi 600 dhanka bari altitude-kan waxa waa 50 feet xawaaraha diyaaraddan waa 500 knoot 3 daqiiqo kadib isgaarsiinteena way go'i doontaa waan maqalnay 40,000 oo feet diyaaraddiina waa inay ku socotaa duway markaad ku dhawaataan 25 dhanka waqooyi 55 degree dhanka bari marka aad maraysaan waa inaad la hadashaan waqtigaad imaan doontaana waa 9 saac iyo bar waa idinla soo xiriiri doonaa intaanu kaliya miya haa mudane jadwalku wuxuu ahaa saacad ka hor in akhbaar ka helna ilaa hadda laakiin akhbaar kama helin waan la'nahay ma naqaan wax ku dhaca dadkaas dhegaysta waxaan u baahanahay dadkii diyaaradda shaqaalaha ka ahaa iyo dadkii raacay aqoonsiyadooda oo dhan sida uu dhaqsiyaa badan oo in gacanta lagu soo geliya aniga okay diyaar waay qof walboo diyaaraddaas raacay feerkiisa halay keeno midda kale waxaan rabaa intaan diyaaraddaas ka helayno arrimaheeda bannaanka inay u baxdanba doonayo ma fahanteen hala qariyo okay diyaar waay riyadii u dambaysa kuwaas ma ahayn waa noola hawli golofaan ciyaarayaa maxaa yaal caajisaan dareemayaa waayo arrinta golofkaada ma maqlaya haddaan wax samayn lahaa maxaan sameeyaa adeer laakiin qorshahan waa ka halaabay filimkani waxa lagu hadduu wax samaynayo qaab fudud ii dili karay baxbad igu dhufa karay midii igu dili karay bamuu keeni karay qaab fudud waa bamka dil isku qarxi moogtaa laakiin sidaan dhan maxay igu silcinayaa waan fahmi karaa cadowtinimada waxa ay tahay meesha ka bilaabanaysa intaba cadowtinimada macnaheeda waa dareemi karaa sida shawle iyo wembele doon iyo macnaa waxyaabahaasoo dhan laakiin diyaarad adeerkay weydii qiimaha diyaaradda ay ku fadhisay hadduu yaqaanay haddii kale
khudbada saa u dheereed waa dheereed maxaa liigu sheegay pilot diyaaradda inuusan saarnayn yaa igu kacinaya diyaaradda waa kaas diyaaraddii awada haabihiisa marka ciil yaan la hadlaa diyaaraddeena waxay ka soo kacday Bombay waxayna u dhaqaaqday dhinaca Dubai halkan markay marayso waa markii ugu dambeysay ee Felixka ay soo dirtay meeshana waa meesha raadaarka ay kaga baxday oo akhbaarteeda dhan ugu waayay hadday wax walba saxnaa lahaayeen diyaaraddeena sidaan ay u soco lahayd Dubai ayayna tegi lahayd balse qalad weyn ayaa jiro Bombay iyo Dubai waxa u dhexeeya kumanaan tower hadday baasha meesha mari lahayd waxaad ogaatiin taawaradaas mid ka mid ah ayaa wax ka duubi lahaa balse dhinacaas maba aysa aadin taas macnaheedu waxaa weeye diyaaraddeena badda ayay aaday halkaas ay u dhaqaajisay waddada ayay ka baxday dhinaca badda ayayna aaday wax walba Felixka ku soo dhacayna dhinacan iyo dhinacan halka u dhexis ay ku soo dhacayeen mudane suda horta diyaaradda unaka markay baaritaan ku sameynaya wax walba oo dhammaystirnaayeen diyaaraddaas wax ka halaysnaa male meesha korontada waxa dhan aan ku dhahay waa cusbaayeen okay ahaayeen xitaa mudane qaybta emergency ee diyaaradda way fiicneed ninka diyaaradda ilaalinaya wuxuu noo sheegay markii diyaaradda duulaysay inay aad u fiicneed balse 15 daqiiqo kadib ee isbedeshay kontaroolkana anaga marka hore ma uu noo shaqaynaynin mideeda kale wax laga yaabaa raadeerka hawada dhexdeeda markii maraysay inuu ka lumay sababtoo isbedelka wuxuu dhacaa 5 ilaa 10 sekin baylotkana kabtan sinjis aniya BK Sharma la socda waxa walbana video camera ka fiirina waa kana aku daro Georgie kabtan saniya qoyskiisa ayuu Phoenix kula soo dalxiisaya asaga sawirkaana waxaa la soo dhigay 4 saac ka hor weliba waqtigii Felix hawada ay gelaysay marka akhyaari waxaad ii sheegaa diyaaraddan ayada lama weyn ee waa la qariyey
ducada bam kale maa la aqbalaa waa yaabanax tan maxaa ugu ducayste bambadii ugu wareejiya haddaan ku ducaysana waa ilaamiya ducooyin kaloo fara badanaa jira yaaqay waa lii rumay lahaa ayar isdeji toos u fiiri bamka toos fiilada raac weliba midda gariijaha mase cagaarta may gariijaha waay may cagaarta sugteen raaca marka ma kala aqaan waxaan waa ku wareeray laga yaabay fiilooyinkii inay islahaadaan laakiin gasaca sababta gudud looga soo dhiga maxay tahay dhib badan asigoo isku daya may muu dhowaanaya jay fayruu saacan hadday joogi lahaayeen shilnay tuuri lahayen waa ku kala bixi lahaayeenno filimaanta jaceylka maxaan ka doonay agshinka haddaan fiirsalaa saacan babkaan xalaa uu keeni lahaa laakiin anaa isku ciyaarano waxaan sameeya sug waa isku daya intee ka bilaabaa suga lisdejina laakiin familkaygan hoosta ka geli doonaha umalaynaa चुप हो जा चुप raadad finiska markii la waaye kadib 25 daqiiqo military Soomaaliya raadalkood waxa soo qabtay diyaaradda la aqoonsan karin waxa isku dayay imtixaan diyaaradda hawada ku jirto in la soo halin laakiin diyaaradda hawada ka baxday Soomaaliya macnaha aniga qiyaastii runtii waxay ahayd mid mudana laba xaqiijin diyaaradda inuu yahay in kale aad baan ugu xumahay waayay waxay dhama samayseen haa mudane kabtan Sanyal ayaan la hadalnay isagana shaqada uu ku soo laabtay hadda wax walba sida la rabay ayaa loo xalinayaa mudane reportkiisuna waa kana uu soo gudbiyay waxa uu fiiray diyaaradda Phoenix pilotka joogtaa waa kana pilot kalena waa kansalne emailkan xafiiskana ka imaadne waxa walba information meesha ka helnay isla saaka dacwada ayuu soo gudbay waliba xafiiska ayuu soo gudbay wuxuuna sheegay aabis of pilot in la laayahay kadibna ID card fars ayaa loo sameeyay ayadoo la xaqiijinaa in amarkeeda mudan waxa waaye aan qiyaas balhal mar aniga amarka xafiiskeena ayuu ka yimsan u maleynaa Soomaan mudane laakiin mudan hamida jiro ay maxay tahay mid kale ii sheeg bal mudan mid kale jid maxay tamtaqaanaa security airport mid la sameeyay lawanina ka maqnaa wili maanta soo baa way bal horta hal mid ii sheeg beeloodka magaciisa maxuu ahaa horta asaga biika sharma oo asaga ma oga miyaad beeloodka la socday kabtan saana inuusan ahayna duulimaadkiisa ugu horeeyay waay mudane arintan madaxa sare waxa walbana waa u sheeganaa ii ka xalin karaa aniga wax macalin maya diyaaradan waa la afduubtay balse qofkii afduubtay amaba dadkii afduubtay waxay sugayaan natiijo anagana ma doonino in ay wax ogaadaan ayaga ilaa anaga wax ka ogaanayno cidna iyo waxbaan loo sheegin hadalkayga ma fahanteen wax walba hala qariyo maamulka ma imaaday mudane 20 daqiiqo kadib way imaanaa maangidaas way hadda baxa balse hal mid ii sameeya inta aniga aan ka imaanayo shirkiyaan la bilaabin tawakkal waaye
نقص يا غدا نقص. نقص بوبسي يا أخي بوبسي. maanta yaa khinin awal in laga dhigaa la rabo suma
هيدي هلو 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 مالي مقلا قف عدكيغا مقلا يا مجرى الى هذا يسا جوابه warbixino ku saabsan diyaarad duulaysa ayaa baraha internetka oo dhan qabsaday taasoo weliba olol badan uu ka baxayay waxa la helay fiidiyoyaal diyaaraddaas ay ka soo dhex muuqanayso waxaana duubay in reer Dubai ah diyaaradii markaan eegnay kadib waxaan ogaanay inaysan ahayn diyaaraddan mid rakaabka qaada ay tahay mid qaas loo leeyahay fiidiyogana hadda arkaysaan waxaa muujinaya dadkii diyaaradda saarnaa fursado yar inay ku badbaadiyeen dadka la shaqaynaya diyaaraddaas ee Abu Dhabi joogana ilaa iyo hadda waxa warbixina ay ka heleen haba yaraatee ma jirto waxa inay isku dayaan waqtigan inay la xiriiraan dadka saaran diyaaraddaas laakiin meel diyaaraddaas ay ku qaraxday iyo meel ay ku dambaysay ilaa hadda lama helin أنتي سيدة أبو دبي هذا اللحظة ما عاد سوقسا مدن إلى هذا دقيقة مقولتها مدن رفيق هذا ربطو إنا داركتو قافك ودولا يا سجا أرد أو عيرك كويلي سيد ودولا يا نسوارك هذيك حفلة ويلكي مباشالو سا وركي سيبريت حكومة حفلة بيل ووقيس أنا حريرو قال مرويح اللي باحة هذاك خرشو هناك سنة وطقي لكن دعاء مركان كلقي مع السقع حتى ولا قدره ايوه على تاس تأسيس أنا دقا يا قراسنا دعاء ولا قب قلنا ونصيب انت ماشي أنا تصدح ميدا صار هضادي مالي هاد أفراد كنا غولا هيت وركب بدني قد أفكودي قفي عاوي أكتاد مجوغا إلا هذا الغير وقتك ما حد يقول له من إنسان ما يجوابتي ما حد رفلي سواك بريا عاوي وبدباد ويلك السلام عليكم محاكو سمية مرو دعي السماح كانوا متاقنين نفتدي اسكتي إنا بدباد السوحالات كنتو بليز
mudane Laada, midaan laada. ku weydiina adiga shuud ma kuu muuqdaa haa shuudaan ku dhahay runay kaa tahay haa runna iga tahay ma kuu muuqdaa maya ani waxyaabaan hadda kama hadli kara hal xaasaan leeya gabadhe hay qasbin ee xaals maxaan sameeyaa wiilkayga baarashuuday ka wada xaa ku hel adiga barashuda danaysa marnayso ma boodeen adinka ma hadal idinka sugidaa iyo jawaabo wiilkaygii out eject taaba balorta see u hadlaysaa awowe magaalaan kor duulayaa hal qof sida loo badbaadiyey ma kumanaan qofaa loo dili karaa ani iga farqiga noo dhexeey muxuu yahay awowe ranfiir muhiim ayaad noo tahay wiilkaygii warkaas ka bax kowdhe diyaaradda in la dejiya ayaan doonayaa waa inaad qorshe keentaa sideen u dejiyaa kadib gabadha shukaasa haddii aad doonayso caawi oo ku baryaa wax la sameeya dhaqso baabsi gabadha hadalkeeda iska daa mudane i dhegaysa marka hore waa inaad daarataa transfer fofarka si aan anaka kuu dejino taas muhiim waaya qimudana daaro kalimaa way tusi bliis yaa qaycaawi waa ware wiilkan dhib badan ayaa qadeer aniga diyaaradda ma duuliyo waan sameeyaa oo keliya si tartiiba igu sharax boorka hortaada ka muuqdo dhinaca midig batoon ku yaal waa ku qasbantaha inaad taabato taaba yaaqay beela waaye hadda diyaaradda online waaye mudana beelaad tahay waxaa noolaga baahanyaa diyaaradda leebarkeeda inaan saxno hadda baalka midig waa inaad 15 digri geysaa waxaa lagaa rabaa sbigana 110 waa inaad geysaa batoonkana gedi kadibna marshada tartiib hore u ilaa hadda kuma fahmaayo istaji deganaan yaqafaankaaga ma aqaan diyaaradda kor xawaareedu u socdaa waana qarxi doontaa kafta kuma jirnaa kudha maxaa kaa qaldan adiga dabcan xili la kaftama ma joogno kowdhe si tartiibe waxay igu fahansiisiya diyaaradda u dejiye ujeedaa marshada weyn oo dhexda ku taala adiga midda weyn soma oo madow dhalaalaysa haa marshada weynta waxaan kaa rabaa tartiib gadaal inaa u soo celisid hadda waxaa lagaa rabaa 120 nood inaad geysid hadalkayga ma fahantay dhaqso shaashada geey 4 shaashad ayaa meeshaan iga muuqato waa midee maxaa ku sameeyaa yaa qibidda wareegga badan leh ma midda maabkii matoorada kuu muujinaysa mase waa mid kale buugga hakiraadan kuma qornay muhiimadda waa inaad cabirtaa muhiimadda kaadan hadda dhaqso yaa qistaji hadda qaybta dhexe waxaa lagaa rabaa tartiib inaa u wado riixaya waan wadaa soo maaragtid waan wada weli waan riixaya hadda waxaan kaa rabaa inaad ka raadiso qaybta dhexe kalar buluug iyo kalar kafee ka raadi buluug ima muuqdo kafayna sidoo kale ma arko maxaa sameeya oo kale ii sheeg in la helo waa muhiim kafeega haaf ee ama buluug oo haafa tartiib u kaxeeyaa ku dhahay waan ku garto waan riixaya waan wadaa haye okay weli wuu noqday beela waa haddaa hesh hadda waxaan kaa rabaa marshada tartiib inaa uga foqdo midda kaleeta lambaraa kuu soo yeerinayaa lambarkaas waxaa rabaa inaad geliso haddii kale diyaaradda halis ayaa ku imaan micnahaygu way qarxaysaa ayaan ku dhahay kale adig wax ma ii sharaxaysaa mase waa cabsi gelinaysaa waa kuu sheegayaa leh diyaaradda teeda ma ogi laakiin tanaaba i diraysaba ka hor sidee kaa noqotayna horumarisaan ku siinaa maaho kadibna ana alaabta dhaqdhaqaay taas macquul maaha kanaa hadduu ogaada waxaad ogaataa aniga in aan baxar galaay kanaana nin waxyaaba qaar yeelaay maba maya xooga kamagaad ka hadlaysa waa beeloodka waa lacagas iga dalbahooya ya kunturadan ku siisaa hal qof u disho ma dadka saanad u dishaa wax dilan ku dhaasa iyaarkan dil ku dhaaba warkiisa dadka dhex wareegoyo sadarta muga وابن لولي ابن كمان دمان وقصد بتاع العجلة نقصي العجوة هنكون دي بس إلا أدل وقص باين لا نعلى كوجيله مقدم باي صوّن نعلى كمان كنا أنا هران كوجشة أرنتان وأرن أدي أد وير لبعضنا سنان وين أديك هنا أورتد ما بهم بو هل صندوق مذوبات حلوة إذا أرنتيسا صدر تاني شقينا دقرا هذا شما بيجي لهذي كتبنا أفكار وبضانه
hawlwelin adiga ilaa ay hadda rajaa jirtay akhi saas darteeda oo asiga wuxuu u dalbanaya gurmad teeda kale qaraxaas qof kama badbaadi karo ayaa waqtiga fiiri dabaayahu qaraxa 20 daqiiqo ka hore u dhacay iyaarkan ma sahlan dilkiisa inuu dhintaan rabaa warkiisa mugdan inuu soo gaaro mar kawiya ninka mudane nalgeliyaashu way imaadeen diyaarada waa aragnaa waa ujeedii mahayno beelo meesheeda ku soctaa beelo hay maxaa sugaysay sida uu dhaqsiyaha badan gurmadka qaybta saddexaad la geeyo socda adeerka adigoo ku warwala ha walwalo waaba loo baahan yahay aan soo gaaro waa ku baryaa isku day diyaaradda inaad soo dejisa adiga isku daygaas wuu imaanayaa master ranfir diyaaradda ranwayga ayay ku socotaa markaa isku dayayaa si kaleeta inaad u isticmaashid waa ku baryaa tartiib u soo deji diyaaradda sanada ilaadis jeceylaanba kuu qaadaa iska dhagatir xawaaraha 80 nootis geeyaa ku dhahay qaybta dhex waxaa ku taalla marshe madow ah waxaa geysaa 25 digriis hadda leebalka isticmaal si diyaaradda iskugu diyaarisa inay degato wax yar kadibna diyaaradda degasho ayay isku diyaarinaysaa dhaqso ma ku soo celi kartaa ma dhici karto diyaaraddan qalabka lagu soo degi lahaa hadda ma lahan waa raalli ahaanaysaan maxaa dhahday ya abo mudane i dhegayso adiga hadda highwayga ma ku soo degan kartidaan ku dhaa waxaa samaynaysaa biyaha inay ku degataa miyay maqlaysaa bes markan waad ka badbadinaysaa meeqa waxaa iidinaysaa adiga yaaqi warkayga maqla haddaad samayn weyso waa dhimanaysaa ku dha hadalkayga maqlaya bes relax isdeji degnaan meeqay ku siisaa shidaalka xataa diyaaraddu ka dhammaaday maxay dhahday saan kuu sheegay ninkan hadalkiisa ma fahmi kariyaan ku dha wax walba isku dhammaadeen saan macquul maahan هو العظيم عبيد الطائرة بأقل من 100 ميل من هنا إذا ما ينجح ناس كثير بيموت ولكن ما عنده إلا وقود ليوصل هناك mudane ma soo degi karaan meel noo jirta 100 nautical mile inuu ku soo dego waayo haddii kale dad badan ayaa ku dhaawacmayaan ama ku dhimanayaan intaas waxaa sii dheer diyaaradda shidaal ma haysato waan ogahay dhibaato inay jirto awoowe wiilkaygii waa ku baryaa hadalkayga dhegayso axsaankaas la ii samee maanta isdeji adeer maanta dhimashayga ma hayso ee wakhtiga imisaa iga harsan ii sheeg adeer yab meeqa u harta bal sheeg bal 5 daqiiqa u hartay 5 daqiiqa haysataa beelo wakhti aad u badan ayaan haystaa mawduucaan beddelaynaa see tahay gabadhaada ayaa jecle maxaa dareemaysaa hadda kambanigeenna caymis ma leeyahay adeer ii sheeg yaa
yaa noo qaabilsan malaha maya caymis kambanigeenna oo waa iska dhisnayn macnaha maya waa ku baryaa sabab dhegaysta wiilkayga waa ku baryaa waa ku qaanaa waali ay rabtaa inaad samayso marka waa ku baryaa waxbaan aan samayn hadalkayga oo kala yeer markaan waa ku baryaa wow waa soo laabatay jaanti waa arrin fiican wiilkaygii dhegayso annaga waddo kale ayaan raadinaynaa marka waa ku baryaa adiga isku day inaa fahantid xal lama weynaayo anaa ku dhahayo wax walba wala xal 5 daqiiqadii qabata adeer 4 daqiiqa ay harsan aqashay walwalka iska dhaaf ficlan samaynaynaa 1 daqiiqa waa baxday action أصحاب عريا سببتو أكرمت ماشان حالتي عادي وحنت نقول مجوك نصاب بحث شمالي صعد أوكي نبضة إصلاحات دوا بحينا نسعودسية ولا عليك مالقليا هوسكري غاجية كرت ماشان وحنتاي صعد مضل نبض به وعن حتى إني دعان ما هي يا أخي ماشان حالتي dadkan waa hoos yaba joogaan be diyaaradda saacadii ku qaadaysa marka meeshaan sii joogto waa dhimanaysa soo bax nakeen ha koran aadinay saas miya hay nabadba arya caawa helikobtarta marka ma cidlada keentee helikobtarta laba ilaa 3 daqiiqo imaayaysa sug marxaba inta kale dadka amnigooda ha sugaanay bax hay meeshaan dabbi waxaa laga sheegaa helikobtarta aabena halow mudane kana qof ayaa raba adig inuu kula hadlo soo daa waa ku salaamay adeerkana hay lama filanay kugu noqotay maxaa kugu dhacay laakiin qorshahaada qorshe wanaagsan ayuu ahaa in la qaatana waa lagu qasbaya qof qiimihiisa in ka badan haddii aad siiso aabbaha inuu yahay ayuu u malaynayaa ma garatay kana qorshahaada horta si markii loo fiiriyo wuu wanaagsanaa si fiicanaad u soo abaabushay laakiin aniga marnaba imuusan qancin horta kalsoonidaada in la qaato waa muhiim sababtoo ah dhimashadoo qarka u saaran haddana sii kibri ka war muga koowaad mahadsanid waa inay dhahdaa shirkadaad adiga qoysay rabtaan badbaadadeeda ku jira shirkadaadaan badbaadinoyaa ka waran og ii mahad celi shirkaddeeda kana markaad badbaadinaysa ma naag baa boor yar ayaa dusha ka gaara waana ka jajafaya mar haddii aad rabta cirka inaad dab ka shido waa inaad leedahay awood iyo karti aad cirka ku fiirin karta kana haddaad diiddana waa ku baashaalinaa adoo ogeyn weliba
mararka qaar way dhacdaa adeerkanna way dhacdaa ha walwalin tanna hadan kugu talagala leyli काम हो गया. It's time to come back.